ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 17 bisha 3 sanada 2021 qodobada ugu waaweyn ee warka subaxnimo aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirar gaargaar oo ka socda magaalada Muqdisho maxaa ka soo baxay shir si gaar ah u dhexmaray Siciid Dani Sheekh Shariif iyo waliba Axmed Madoobe xog iyo macluumaad dheeri oo aan idinkaga hayna ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa Yamamoto oo durba bilaabay cadaadis uu saarayo qorqor iyo kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale daawan doontaan saaxiibayaal sidee u dhacay maxaysa Soomaaliya ku soo bandhigtay maalintii labaad ee kiiska dacwadda badda iyo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo ku sugan magaalada Muqdisho oo markii ugu horeysay kiiska badda ka hadlay haddaba muxuu ka yiri xog iyo waliba macluumaad dheeri oo aan idinkaga hayna ayaan idin soo gudbin doonaa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxa ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan gaar ah Muqdisho kula yeeshay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo Axmed Madoobe kulankaas ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan tan doorashooyinka oo khilaaf adag uu weli ka taagan yahay sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga soo saaray kulankaasi gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir gaar ah la qaatay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo mudane Siciid Cabdilaahi Dani waxaana isku wareyseen xaaladda siyaasadeed si gaar ah sidii doorasho la isla ogol yahay dalka uga dhici lahayd iyadoo aan dhiig daadan dalkana uusan dib ugu laaban burbur iyo dagaal sokeeye ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale qoraal ku saabsan kulankaasi oo lagu baahiyay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed kulanka waxaa ku weelinayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho ay ka degan yihiin gudaha xeyndaabka Xalane halkaas oo iyagu dalbadeen in la dejiyo maadaama sida ay sheegeen aysan isku aamini karin goobo kale oo Muqdisho ka tirsan waxaa weli qabsoomay la shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaas oo la sheegay in gogashiisa la dhigay Xalane waxaana jira warar sheegaya in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taabacsan ay doonayaan in gogasha shirka lagu soo wareejiyo madaxtooyada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho kadib safar maalmo qaatay oo uu ku joogay dalka Turkiga waxaana weli dalka ka maqan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafda Gareen oo la filayo in islaamaantu uu magaalada Muqdisho soo galo James Swan iyo Yamamoto ayaa waxay badurba bilaabeen cadaadis ay saarayaan qorqor iyo kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku bilowday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo safiirka Mareykanka Donald Yamamoto ayaa labadaba si kala duwan oo la kulmay qorqor wax yar kadib markii uu yimid magaalada Muqdisho qoraal ay madaxtooyada Galmudug ka soo saartay kulanka James Swan ayaa lagu yiri madaxweynaha Galmudug iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ka wada hadlay dadaalka beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomida shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 September 2020 ee Muqdisho iyo shirarkii gudiyada farsamo ee Baydhabo ku soo gabagaboobay 16 February 2021 madaxtooyada ayaa sidoo kale kulanka Yamamoto ka tiri madaxweynaha Galmudug iyo danjiraha Mareykanka Yamamoto ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomida shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 September 2020 Muqdisho iyo shirarkii gudiyada farsamo ee Baydhabo ku soo gabagaboobay 16 February 2021 ila wareedyo lagu kalsoon yahay warbaahinta u sheegay in Swan iyo Yamamoto ay labadaba ku cadaadiyeen qorqor inuu aqbalayo shir ay beesha caalamka ka horwadeen ka tahay ee ka dhacay Xalane oo shaki uu soo galay ka qaybgalkiisa qorqor oo kamid ah madaxweyne goboleedyada taabacsan ee Villa Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in diidmadiisa shirkaasi isaga iyo Lafta Gareen uu farmaajo adeegsanaya inuu shirkaasi uu ku fashiliyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dacwadda kiiska badda oo shalay ka furmay maxkamadda ICJ ee magaalada The Hague. Axmed Madoobe ayaa sheegay in xukuumadda iyo shacabka Jubbaland ay garab taagan yihiin sidoo kalena rajo weyn ka qabaan inay guuleysato dooda dalkeena ee aan ku soo ceshanayno baddeena ay muranka gelisay Kenya. Waxaan garab taaganahay qareenada iyo xubnaha kale ee maalintii labaad u taagan dooda dacwadda badda ay nagala dhaxaysa Kenya ee taala xarunta maxkamadda cadaaladda adduunka ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku daray waxaan ummadda Soomaaliyeed uga baaqayaa in si wadajir ah loogu midoobo difaaca baddeena taas oo ah mas'uuliyad saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waana guuleysanayna insha Allah. ugu dambeyntii waxaan u madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inay u midoobaan siday u difaaci lahaayeen badda iyagoo wada jira sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxaa maanta mar kale ka sii socday dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya taasoo hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. dooda Soomaaliya ayaa maanta halkeedii ku sii soconaysa iyadoo ay mar kale qareenada Soomaaliya jeedin doonaan dooda ku aadan difaacidda biyaha dalkeena. qorshaha ayaa waxa uu ahaa in qareenada Kenya ay beri bilaaban doonto dooda, balse Kenya ayaa maqan iyada oo ka baxday kiiska badda ee ICJ waxaanay ku hoolantahay sidii ay kiiskan ugu gudbin lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa sida ay u dhacday maalintii labaad kiiska dacwadda badda ee ICJ maxayse Soomaaliya ku soo bandhigtay mar kale. dhageysiga dacwadda Soomaaliya iyo Kenya ee maxkamadda Hague ayaa la soo gabagabeeyay maalintii labaad oo ay hadalkeeda sii wateen qareenada u doodaya Soomaaliya. labada qareen ee hadlay ayaa soo bandhigay mowqifka Soomaaliya ee ku aadan sidii ay tahay in loo xakameeyo xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya. qareenada ka hore ayaa sheegay in Soomaaliya mowqifkeeda tahay in xadeynta lagu saleeyo leenka tooska ee ku astaysan xuduudda badda. qareenada Soomaaliya waxay sheegeen in xadeynta badda ee noocaas loo adeegsaday xukunadii hore ee maxkamadda go'aamisay ee ku aadanaa badaha wadamo uu muran ka dhaxeeyay sida Bangladesh iyo Myanmar oo kale. qareenada Soomaaliya waxay sheegeen in xaqiiqda tooska uu markaasi cadaalad ah badda ugu kala qaybinayo Soomaaliya iyo Kenya waxaanay gaashaanka ku dhifteen in xuduudda ay ku saleysnaato loolka ah mowqifka Kenya. qareenada waxay sheegeen in loolka ay Kenya ku saleynayso doodeeda ay markaasi jirin meel lagu isticmaalo isla markaana uu xaqdaro ku yahay Soomaaliya. qareenada waxay ku eedeeyeen Kenya inay dacwadeeda ku saleyso qaanuuno aan ahayn kuwa caalamiga. qareenada Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay tallaabooyinka ay Kenya qaadeen marka ay noqoto dhulka la isku hayo. qareenada Soomaaliya u doodaya waxay sheegeen in Kenya ay ku xadgudubtay madax banaanida dhul ay sheeganayso Soomaaliya. qareenada waxay kaloo ay sheegeen in Kenya ay qiratay inay bixisay shati la siiyay ugu yaraan 5 shirkadood oo shidaal ka baaray dhulka ay sheeganayso Soomaaliya waxaana ay markaasi qareenada intaasi ku dareen in waliba ceel laga qoday dhulka ay Soomaaliya sheeganayso. waxay qareenada ugu baaqeen Kenya inay joojiso isla markaana waxba kama jiraan ka soo qaadashada ay siisay shirkadahaasi waxaana ay sheegeen in Soomaaliya oo doonaysa niyad wanaag derisnimo aysan doonin inay Kenya magdhow ka siiso xadgudubyada ay sameysay. waxaana ay qareenada sheegeen in Soomaaliya ay doonayso 3 arrimood oo kala ah in maxkamadda caalamiga ay si cad u xaqiijiso xaqa ay Soomaaliya u leedahay dhulbadeedkaasi, inay diiwaan geliso xadgudubyada ay Kenya sameysay iyo in la joojiyo tallaabooyinka Kenya. marka nin kasto ma taqaana Soomaaliya waxaan rabnaa inuu taageero hawshan loogu jiro maxkamadana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay guul loogu dhamaan doonto bidilaahi tacaala. waxa weeye dhulku waxa weeye min raas caseer ka bilaaw ilaa iyo Kemboni hadda meesha basoolka waa raas Kemboni dhinacaana waxa lagu sheegay raas caseer ah in ma taqaana cadow uu jiro ma taqaana soo foodle oo hadda aan isha ku hayno idinkuna aan Soomaaliya oo dhan aan jecelnahay inay isha ku hayaan ay daawadaan oo arkaan oo wixii akhbaar markaa isu soo gudbiyo insha Allah bidilaahi tacaala saasan ku soo ma taqaana isugu xaakimka maxkamadda ayaa ka hor inta aysan dhageysan soo xirin sheegay in Kenya ay warqad u soo qortay maxkamadda ICJ taas oo laga doodayo waxaana ay xaakimku sheegtay in isbedel ku imaan karo jadwalka dhageysiga ee maxkamadda. dhageysiga maxkamadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya wuu socdaa waxaana u harsan maalmo kale ayaa la yiri.
guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelka waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkeenu halkani soo gelino waana mahadsantihiin.